gaar ahaan Puntland waxa runtii muddadii u dambeysay dawladda Puntland ay ku jirtay dagaal iyo dirir ay rabto inay dadkeeda iyo dalkeeda uga dulqaado cadawga ku soo duulay ee arxanka daran. waxaan marka ugu horeysa halka rabaa inaan uga diro hambalyo ciidamada geesiyaasha ee Puntland qaybahooda kala duwan. sidoo kale waxaan rabaa inaan halka hambalyo uga diro xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka guud ahaan iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan, haddii aan lahayd meediyaha, haddii aan lahayd dhalinyarada, haweenka iyo bulshada reer Puntland meel kasta ay joogaan, sida hagar la'aanta ah ay u garab istaageen howlaha sifaynta hilaac. waxaan sidoo kale halka rabaa inaan marka ugu horeysa u soo jeediyo in dadka reer Puntland ay sida ay isu kaashadeen ee Ilaahay idankiis uga dhabeeyaan inay dadkooda iyo dalkooda ka dulqaadaan culayska waayidii dambe saarnaa. marka ugu horeysa waxaan rabaa halka inaan tacsi uga diro shuhadadii dhiigooda ku daahirisay dadkii iyo deegaanadii cadowga u haystay. waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannada firdawsa geeyo. waxaan Ilaahay uga baryayaa kuwa dhaawac inuu boogadhayo. waxaan Ilaahay ugu rajaynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen inay samar iyo iimaan ay ka yeeshaan. waxay ahaayeen shuhado dhiigooda u shubay inuu dalkoodu u noqdo iyo dadkoodu ay xorriyad yeeshaan. waxaan runtii halka meelay joogaan ciidamada Puntland ee geesiyaasha ah ku boorinayaa hawsha ay qabteen inay tahay hawl ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda caalamka iyo ummadda reer Puntland bay u ogtahay. ay karaamada dadkooda ku sugeen, ay muujiyeen geesinimo, ay muujiyeen lahaanshaha dhulkooda in cid walba oo ku xadgudubta ay diyaar u yihiin in ay ka saaraan. waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis hawshaas socota oo runtii hawl aad u baaxad weyn ah oo dadka reer Puntland oo dhan ay u midaysan yihiin inay noqoto hawl sidii loogu talagalay u fusha. waxaan rajaynayaa dhalinyarada iyo dadka magaalooyinka jooga ee gurmadka iyo dhiigga iyo garab istaagooda inay hawsha intaa ka sii wadaan. waxaan rabaa halka fariin inaan uga diro qurba joogta reer Puntland ee ku howlan siday u garab istaagi lahaayeen inay soo dedejiyaan howlaha ay ku jiraan, shirarka badan intay joojiyaan, ficil u bedelaan. xaalad adag bay Puntland ku jirtaa, ay keli ku tahay. dagaal weeye, waqti buu qaadan karaa, hawl culus baa socota, kharash aad u fara badan ayay dawladdu ay ciidanka la garab taagan tahay, hadday tahay saanad, hadday tahay sahay, hadday tahay dhaawac iyo daweynteeda. dhul aad u adag oo aad u dheer oo runtii logistikadu ay ciriiri tahay weeye. waxaan u baahannahay garab istaagiin. Puntland waxay go'aansatay iyada iyo dadkeeda in isku tashadaan. ciddii wax ku biirisa diidi mayso, way soo dhaweynaysaa. laakiin cid baa waxna taraysa, gacmaha u laaban mayno. waxaan insha allahu tacaala uga mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay howlgalkaas wadamada qaybtood oo runtii marka loo fiiriyo hawsha socota waxyaabaha qaybtood muhiim ah sida duqeymaha, laakiin hawl maxduud ah marka loo fiiriyo nafta la hurayo, ciidanka ma jooga, agabka yaalla, rasaasta taalla, gaadiidka yaalla, dhaawaca la guraayo. wax Puntland intaa ka taageera ma leh, xabad kaliina Allah ka dhigay. marka waxay muujiyeen reer Puntland inay isku tashadeen, isku tashigaas inuu yahay midka guusha soo dedejiyo. waxaan si gaar ah ugu mahadinayaa dhalinyarada geesiyaasha oo iyagoo dhaawaca qaybtood ka xun yihiin in ay ka baaqsadeen hawshaas soo afjarideeda. qaarkood iyagoo dhaawaca aan ka arkayno inay jeclaan lahaayeen inay goobta ku noqdaan. inta joogta iyo inta jirtaba isku niyad inay tahay, waxayna farax gelinaysaa, waxay muujinaysaa cadowga cimrigiisa inuu soo gaabtay. بسم الله وكفى سلام الله عليكم خيار ميل والبود الدنيا ka joogtaan baas maanu sheegin barinaya ma barideen sheegade ayaanu ku bilaabi doonaa casharkeena hadii Allah uu dalaw ka raali noqdo kala maqnaasheena waa dareemi kartaan ma arkaysa macnii wax yar waana loo dhuujiyay laakiin Rabbul Izza caadilsana oo ma arkaysa amaan badna weeye hadalkeenu casharka aan dhiibi doonaa waa sheegade laakiin goosan buu u dhici doonaa dhagaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qaayalahow. waxaan ku bilaabaynaa ayaan dhaweyd waxaan idinla wadaagnay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud in maalinta Jimcaha uu aadi doono Tanzania. su'aal aan ku weydiiyo walow aan anigu
hawadaba aan ka maqnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud Tanzania maanta oo jimcaha ma u dhoofay mise uma dhoofin Uganda ma maray waxaan rabaa inaa iga soo jawaabtaan anoona waxba la soconin oo warbaahin macnii aanan fiirin oo xaalatul xaal aan ku jiray haddana adinkaan idinka rabaa warbixintii aan sii sheegnay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu Tanzania jimcaha aadi doono inuu maanta oo jimco ah Tanzania u baxay mise inuusan u bixin jawaabta idinka nasiya madaxweynaha ma aaday mise ma aadin sheegade madaxweyne xasan sheekh maxamuud Tanzania ma aaday maanta isagoo Uganda maraya mise ma aadin حد يجي جواب الذي سكومنتي هذا حرامبا ومعني بيج كان سيد الله صور الربا كنبا جواب دي بدي الصومالية مدحوينو ما آذي ما أنتي جمعيه مسمى آذن لأن أنو حان إذين شاكنا جمعها مدحوينها صوماليا وآذي دونا تنزانيا ما آذن مياه سووا آذي يا جواب على قرب الصومالي ده مدحويني حسن ما آذي جامعة ضدك حدنايو مسمى أوسن آذن هو آذي ما آذن ضدك هذا ما الله سعدان مياه مدحوينها الرميسي واي قدم كاسي سجاه شاقد ده أيان استدبر دقايا واي هاي أيان دويت سيدوك لو حان دي لو داغني هوتيلada magaalada Muqdisho in amar hoose uu soo baxay inaan lagu shiri karin mucaaradka aanay shir ku qabsan karin sidaas la soo rogay ayaan idin la wadaagnay walaalayaal warka aan maalmo ka hor idin sheegnay hadda ma soo shaac baxay oo si cad ma u aragtaan hoteelada mucaaradka inaysan ku kulmi karin sheegade mucaaradku kuma kulmi karaan shirar kuma qabsan karaan magaalada Muqdisho ma hayna misaada ma hayno soo baxday mise soo bixin waan israacin doonaa marka على مسارك أحمد مذوبي وحالله صار جدي رير أيا الله صار جدي جاسي وحالله قلت لك لي مدحوينها الجمهورية الصومالية مدن حسن شيخ محمود فربدنانتيسي يتربدنانتيسي إن أوسن قسن فرهنا أوسن لسوق جلين جدي جاسي وحالله دي سيكون سجال بقول سجاشن يتضبطي مركزو Soomaaliya dawlad ba aan ka jirin Qaahira shir lagu qaban jiray oo ma arkaysa lagu soo kala xanaaqay xilligaasna Baydhabo iyo Bakool ay ka dagaalamayeen huwanta Salbalaar Caydiid ku dhalay dhaxlay Caydiid wiilkiisa agoonkii Xuseen Caydiid la yiri shirka waxa loo soo rarayaa Baydhabo Dr. Shaati Guduudna uu yiri Baydhabo oo ma arkaysa dhulkeena la haysto shir laguma qaban karo annaga diidnay faclan ay diideen arareeda macnaheedu shirkaasi macnaheedu guddigii markaasi aadan gabiyo ogaadeen ah ya Cabdullaahi Yuusuf Axmed waati ay ka qayb galeen yaani xanaaqi ka dhashay shirkaasi waati Puntland lagu dhisay 1997 ayaa la dhisay guddigaasi Qaahira ay aadeen 98 waxa way waati shirkii Puntland markii Qaahira uu soo fashilmay kadib Puntland dhidabada loo aasay Puntland xanaaqaas lagu dhisay markaasi markii shirkii Qaahira la isku soo dagaalay hadaad ogtiin hadii kale marka guddiga cali masaarka Axmed Madoobe qaban qaabada iyo xafladda ku shaqada leh waa guddigii la dhisay 1997 kuwaas loo xil saaray ma arkaysa macnii haddana Axmed Madoobe ma arkaysa garab taagan marka Xasan Sheekh Maxamuud si uusan u soo faragelinin si uusan ma arkaysa macnaheedu dhibaato aan u keenin dhanka diblomaasiyadan ka hadlaya xabad kama hadlayo baasha mararka qaar macnaheedu xabad waa loo baahan yahay
laakiin hadda waxay joogtaa diblomaasiyadday joogtaa marka maadaama dagaalka diblomaasiyadda uu ka kulul yahay macnaheedu midka xabadda Nelson Mandela oo ninkii xorriyadda u dagaalamayay South Africa muddo badan u xidhnaa macnaheedu madax banaanida South Africa raadinteeda waa tii uu yiri the pen is more power than the weapon macnaheedu qalinka waxa uu ka xoog badan yahay waa arkaysaa macnaheedu hubka caadiga ah ee la gano marka sidaas awgeed ma arkaysaa macnaheedu diblomaasiyadda ayay kaga adkaanayaan ma arkaysaa guddigaasi macnaheedu loo saaray caleemasaarka Axmed Madoobe macna badan bay leedahay xafladaasi macnaha ay leedahay caleemasaarka waxa weeye kow internationally Soomaaliya international community ee hoos joogta marka runta aanu hadalno dawladeedu ilaahan hoos joognaa laakiin dawladda Soomaaliyeed waxay hoos joogtaa international community ama beesha caalamka in beesha caalamka laga gado ma arkaysaa macnaheedu doorashadaasi inay sax tahay caleemasaarka Xasan Sheekh Maxamuud oo federaalka sheeganayana ceega lagu taago macno weyn bay sameynaysaa sidoo kale waxyaabo kale oo waxa jira qarsoon oo macnaheedu goosanka aan ku sheegi doono oo la xiriira Kismaayo waxa ka soo socda Kismaayo wax weyn baa ka soo socda ogaada qodobkaasi goosanka meel baan ku xiri doonaa haddii Allah awood leh uu ka raali noqdo magaalada Kismaayo ma arkaysaa caleemasaarkaasi markuu dhaco gogol ayaa looga dhawaaqi doonaa gogoshaasi sidii la doonaba horta xafladda ma arkaysaa lagu qabtay laakiin gogoshaasi wadar ogol baa looga dhawaaqi doonaa in ma arkaysaa gogol Soomaaliyeed macnaheedu ay qasab tahay in la isugu yimaado meeshaasi waxa su'aal la weydiin doonaa Hargeysa iyo Baydhabo labada qofood ee su'aasha la weydiin doono Baydhabo iyo Hargeysa weey gogol wadar ogol Soomaaliya dawladnimo dhameystiran in loo soo dhiso gogoshaasi macnaheedu ayaa looga dhawaaqi doonaa ama garow hala aado ama Baydhabada nafsadeeda ha isballaqdo gogol Soomaaliyeed macnaheedu hala dhigo ama ma arkaysaa macnaheedu يعني هدي لا رب الله سبحانه وتعالى ديغو لكن waxaan rabaa inaan sheego Kismaayo gogol baa macnaheedu cali masaarkaasi gogol baa xigi doonta goosankaasi waxaan doonayaa inaan xiro isaguna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maadaama dhaqaale dari ay qabsatay qaxootiga Falastiiniyiinta ah gobol Soomaaliyeed baan siinayaa buu yiri beesana hala isiyo atooraha lugeeya iyo ma arkayse imaaraadka oo ay isdagaaleen ayuu arrinkaasi ka iibinaya hadda already isagu waa NGO le arrintaas uu la yimaaday saddex gobol midkood ayuu doonayaa inuu dejiyo qaxootiga Falastiiniyiinta ah oo laga soo raraayo Gaza kow gobol loo yaqaano bari burcayo banaan hawd boosaaso iyo bari waxaad fahmi kartaa duruustii aan idin siin jirnay iyo hadda waxa ka dhacaya Puntland gaar ahaan gobolka bari macnaheedu cajaladda inay isku xiran tahay dalkan dal lagu soo duulay inuu yahay qorshihiisana uu badan yahay ajaanibta lagu dilayna 100 inay ka badan tahay madaxdooda hadda meeshaasi marka waxa ka aragtaa shaqadan way sii horeysay waana ku sharaxi doonaa gobolka bari ama gobolka sanaagna qulubta ka socotaa waa dareemi kartaa malaha xiis iyo mayd meeshaas ay ku yaalaan oo bari iyo sanaagna maba kala dheero waa daris waxaan u malaynayaa dubayska Usmaan Maxamuudka isdilaan dhuxusha isku dilaan waxa weeye waxay daris ku yihiin gobolka bari iyo gobolka sanaag haddaan khaldanayn sanaag dadka degaa say u soo guurayaan boosaasay soo galaan ilaa ya carwar rowda la warsangeli baa iska leh marka isku soo wada duub bari iyo gobolka sanaag waa daris labadaasi meelood ama labadaasi gobolka sanaag ama gobolka bari midkood inuu dejiyo gobolka saddexaadna waa shabeellada hoose waliba gaar ahaan magaalada Baraawe in la dejiyo qandaraaska xogo wali juuc ay ugu jiraan ilaahay laakiin isaga ma hadlay qandaraaska ma arkayse macnaheedu Xasan Sheekh Maxamuud dadkaasi hal gobol oo Soomaaliya kamid ah la dejinayo oo gacanta loo gelinayo
أما بري هالنقضو أما سناك هالنقضو أما شبه لذا هوس هالنقضو وحاوية سقال بقول يلحدن بليون أو دولار واي ما حسن شكل جيسا قادنا يا مايا معنيه وحا كجرى الدولة بدن وحا كجرى ماركيسا معنيه مسؤولين سياسيين هجاميال بدن وكبحسن صومالي دا سقال بقول يلحدن بليون أو دولار كمريكن كاه أياي كوكا عيساه إن معنيه داد كاسي لدجيو قبل كميدا الصومالية كليقود لو قويو صوماليا دان اسديداي دولكا برواقادا دغن horta ma arkaysa macnaheeyo xogaho United States of Somalia ha noqoto dad aan Soomaaliba ahayn marka ay gobol la yeeshaan hadda anaga isdiidan 4.5 Soomaal daarood iyo hawiye iyo dir iyo digil aw mirfle iyo dan wadaag anaga ya macnaheeyo hadda isdiidan oo isu urnay laakiin hadhow dad ma arkaysa luuqad kala ah dastuurka hala furo luuqada Soomaaliga ah waa in laga dhigaa macnaheeyo maay iyo maxaa oo af Soomaali ah laba lahjadood ah وهدي الحمايين لبا أف نقنايا هدي الولالي هاينا هل أف اسكو هدودي هدنا ما أركي سيداد معني كلا ودالك كلا اللوقات كلا كو هدلاي معني اللوقات دا كوبات هدو أف صومالي صومان عربي قمدي دانين واللوقات دا لبات لكن هدودي داد معني بنغالاديش ايا لكيني لوقات دا بنغالاديش معني لوقاتها الصوماليات بكمدين دستور كالوغو قرا لغو دها بارلمان كي قيب كنا قنايا لوقات دا عربتا معني لمبر كو لو